السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ليل وان سلام يا دمانتي الميل كستا جوجتين الدنك وحان الله عمرو ديري عبادة صنصوبان عافمات سرعين رساقد واسعة إلهي هنا وضا سيو الله هنا وضا حفظ دمانتي الميل والبان شوقنو وحان إذن ليه هاي آداد ومهد سنتهين آد إسو بوقتين ملايكتو هاي إسو بوقتو الحمد لله رب العالمين إلهي بانا مهد إسكالي أو إسكو كيسو علي أنا وانا بقبنا وحان ربا مانتا إنان كهادلو نين ليرا هدو فيصل علي ورابي فيصل علي ورابي markaan in yar idinkaga sheekeeyo waa nin 24 saac qabiil kasta caaya wadaad kasta caaya madaxweyne kasta caaya mas'uul kasta caaya dhalinyaro caaya qof alla qofkii afka uu arko caaya calanka Soomaaliya caaya waxaan idin leeyahay asaga dhanba waa nin ka samaysan wuu ismahdiyay qofku markuu ismahdiyo ilaahay hadduu mahda qofka wax siiyo waa inuu yiraahdaa alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin markaad tiraahdo intaad qol isku soo xirto waaba la igu dumiyay waaba la igu qalay waaba saan la igu yeelay waaba sida la igu sameeyay oo ilmahaaga codad ka buuxisid oo familkaaga codad ka buuxisid oo qofka yiraahdo war anaga codadaas noo keenay anaga waxaas maba aan ogeyn maba aan joogin haya waa Soomaali weyn hal xiro kan hal dilo oo dadkii dhan halka sanka adiga iyo kooxdaadu ad ka gasheen Faysal Cali Waraabo ilaahay muxuu qadaray maanta inaad tiraahdo irir Soomaali irir Soomaali miyuusan ahayn kuwaad boqolka magac u kala bixisay irir Soomaali miyuusan ahayn kuwa aad meel walba ka caayisay irir Soomaali miyuusan ahayn kuwii aad sidaad rabtay u hadasho kaba dhigtay dad aan macnaha wax qabsan karin waxna nooleen waxna ahayn waxba aan noqon karin ba adiguna waxaad iska dhigtay nin wax noqon kara hadaladii aad ku hadashay ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabo in yar oo kamida ayaan halkan kaaga daarayaa bal ila dhageysta idinkuna walaalayaal idinkoo raaliya حسن شيخ تلكيني ومقيمي هنا يحاول أن أقدر يدور في قبلة الحال الصومال يا قرن الصومال لم تسكت عليه لما نوحي والصومال لما نوحي وبدنا ويكون شران سوري سنك لا بد ونعس كاسي لا نقول أن الدنيا ضحيت وانك كيون كتير كريم dalkeena isan sameeyay dooni intuu laba gobol inaga jaray waa waxa keen ay Xasan Sheekh oo aabi talin jiray oo gishin jiray oo si qalad ah u furay meesha ay maanta kale xasoo ya sanaad la ilaaha ku daarsay waxaan talin jiray muqtale waxaan arkay baa la arka waxaan talin jiray marka ku keeno ina oo laaye sibirka ay ku dili jiray oo yeeshaan xamaaliyan samad weyn laga dhigay soo xaq waad ilaaha ku daaray والله مركب كين حمال في الأوضة إن شاء الله تعالى حسن شيخ تركيني ومقيمي والأركان halkan wuxuu marayaa ninkii irir Soomaali u yeeranayay oo caawinaad weydiisanayay oo maartay dhibaato tirsanayay oo la isoo gurmad hadda wad aragtaan wuxuu leeyahay awowgiis Xasan Sheekh oo ah madaxweynihii wadanka ayuu oo waliba kii markii labaad ku soo noqday ayuu wuxuu caayayaa awowgiis iyo aabihiis inay ku dagaalami jireen oo ku kala yaaci jireen isku dili jireen markabka uu soo rarto marka wax uu ka soo rarto ninkii la oran jiray Uunlaay marka maanta Xasan Sheekh iyo awowgiis iyo aabihiis بعض حالات هاي وإير سمارو وامضى دلان معناها شقبك ونقطي حسن شيخ واك فهم سيهي رير إير سمارو لأنه واك فهم سيهي حسن شيخنا عايدة عايز أوجس يا أبيز وحا أديك قوفي لنكليه إن الغير هذا نينكي أبيز يا أوجس يو dadka aad sheegaysaa inuu u laayay xamaaligooda ay ku diriri jireen wiilkiisii ayaa ku xukuma maanta madaxweyne ku ah intaas ku filan madaxweyne ma aha nama dhihi karo Soomaaliya
qayb yaroo kamida ayaa lagu soo qorsheeyay oo lagu siin jiray. haddana qaybtii waa lasii kala baray because khaatumo ayaa meesha soo gashay. qaraar iyo ciilka aad ka dagaalamaysay taasay ahayd, wayna dhacday. waxaad lahayd weliba dad kalena waan ka maqlay, khaatumo waa tanaaye say ku socon kartaa oo ku noqon kartaa maamul. waxaa dhuungalo ku noqonaya oo u taagan oon ogolayn ninka la yiraahdo reerka la yiraahdo Majeerteen. balse meesha waxaad ilowday yaa Majeerteen iyo reerkani inay wada dhasheen oo walaalo yihiin. walaalka hadduu wax noqdana walaalka kale uu garab istaagayo. horeyna wuu u garab istaagay, haddana wuu garab istaagay. Soomaaliyana hal mid bay isku noqonaysaa. maamul kasta waa loo ogolyahay inuu isu soo hagaajiyo. aakhirkana maamuladu markii wax isla soo helaan oo wax lagu heshiiyo markaas madaxda oo maamulada iyo madaxweynaha dhexe markaa wixii ay kusoo heshiiyaan hal meel la iskugu imaado si markaas Soomaalidii sharafteedii usoo noqotay qabkeeni. laakiin ha ka baqin, hana aqbalin weligaa inay ku rumoobayso inaad noqoto wadan la yiraahdo Somaliland oo gaar ah. inaad noqoto ha ka yaabintaas. inta gabadheed oo Soomaaliyeed oo xalaalihi ay nooshahay ha ka yaabintaas. xasan sheekh marka caydiisu waxba ka dhimi mayso. awowgiisna Allah u naxariisto, aabihiisna Allah u naxariisto. ninkii aabihiis iyo awowgiis aad caayaysay wiilkiisii baa ku xukuma oo fariiso marna kac ku leh. laas caano maanta markii lagu dhigayay 26 Juun 1 Luulyan waa kii usoo hambaliyay oo waliba sheegay in wadankii markii ugu horeysay 33 sano ka hor markii ugu horeysay wadanku hal mar uu damaashaaday oo xafladihii oo wadanka. adiguna halkaasaad ka calaacalaysay talaayay yaa Soomaaliyeed yaa marna maxaad leedahay war anagu Soomaaliyeed isku dhaqan ma nihin xagga ma nihin yaa. marka walaal waxaan ku leeyahay adeer waxaa tahay nin aan fayoobeyn oon caadi ahayn oon caafimaad qabin. nin aan caafimaad qabin baa tahay. ilaahay caafimaad ka bari, fariiso meel ummadda ka fariiso. adiga iyo Muuse Juudaan ummadda Allah idinka dhex bixiyo. ummadda halkaas aad u gasheen inta aad magaaladaas Hargeysa ku xukumaysiin mid hadli karaa kuma jiro, mid furka tuuri karaa kuma jiro because waa wada baqanaysiin. because afartoodaas waxay isla cunaan wixii yimaaday kala goostaan. idinkana qowda maqashay waxna ha u qaban weeyaan. halkaana af dheer wax kasta oo xunna adaa lagu soo dhiibaa. wax kasta oo xunna adaa lagu soo afku waa ka soo horeeya, caydu waa ka soo horeysa, aflagaadada qabiiladu waa ka soo horeeya. sabaanana ma tihid, mana noqon kartid, mana u qalantid. daahir calo sugna Soomaali Maxamed ogaada taariikh buu reebay. qarankii 33 sano dhisnaa ee Soomaaliland la dhihi jiray ilaahay amarkiisa kabihii adduunka ee meel kasta lagu tuuray ee qashinka laga soo aruuriyay kulligood daahir calo sugna tuusaa jawaan ugu guray oo baabuur ugu sameeyay ayuu Hargeysa ka dejiyay. hadda waad arkaysiin dadku maxay haysteen dacas bay gacmaha ku wateen. askar qaran baana lagu sheegay. hay ilaahay muxuu qadaray marka inaad halkan ka cabaado hadba qof caydo oo Soomaali mar tiraahdo waanahay marna tiraahdo isku dhaqan ma manihin. dadkaasi waa dad saan oo waa xagga badana biyaha markii dadka shacabka Soomaaliyeed ee koonfur ka yimid ay ka soo qaxay gobolo cadan iyo maxaan ku dhahay Ticis ee Yemen ka soo qaxay. ilaahay muxuu qadaray intaad barbare ku celiso inaad tiraahdo dadka Soomaalida kama soo degayaan, kuwa kale ka soo degay. malagu iloobaad u malays yaa qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Somaliland war magaca noo dhiga. horaa lagu yiri ilaahay ha u naxariistee Saada Cali Warsame. Soomaaliya ninkii diidaya dibadda ha u guuro. Soomaaliya ninkii diidaya magaca ha u daayo. yaa marka waxaan ku leeyahay Soomaaliya haddaad diidan tihiin walaal cidina idima haysato. move qaadashada fadahaaga ee hawada ka bax ka guur wadanka Soomaaliya meeshaad ka timaadeen waad garanaysaan ku noqda.
intiina xalaashaana jooga edabna u jooga marka insha allah biidni illahi walaalayaal waxaan idin leeyahay baalaha iga rifaa baalaha subscribe iyo like iyo commentiga shareka haddaad ku dartaan waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum.